dadkaas iska qabta meel ma gaarin anaga Soomaali hadii aan nahay inta dadkaas ay nagu dhex jiraan oo aanan dhehaynin qofkaanaytii hana dhaafo waxaan rabaa meher aniga matalayo Ingiriis ku hadlo marka waxaan ku dhahay ninka af Soomaali ma ku hadle maxay tahay Soomaaliga sheego Umar waa qofka kaliyo markii dadka Uber ama Lyft drive gareeyaan uu governorka iyo mayorka iyo qof kasta uu yiri wax aan ku qaban karo male orsaco yiri aniga habeen iyo maalin waa idin soo taagnaanaya aniga 1 am aan ugu tagay asoo soo taagan wili oo dhaxay ma dhaqaaqayna ilaa biilkan uu pass gareysmo dadka soo qabaabiyeen kasto wax ka kasaaya hadda ay fahmeysaan marka waxaan leeyahay Soomaalida sayti oo isdhaxaya ilhaanan iyo jibinaysiin ama Umar aan iyo jibinaysiin annaga geesinimaana lagu dhalay wiligeena waa guuleysana halyeeyadeena halgamaadeena gabadha marka dadka Soomaalida nacab iyo cusuriyiintu ay arkaan ay noqdaan jirbiya ku dhacay waa gabar cid kasta ka awood badan laakiin markay muuqato awoodeeda aad dareemaynin gudaha iyo qalbiga kaga jirta waxaad ila soo dhawaysaan libaaxadeena guusheena horumarkeena qofka aan igsanayno qofka noo jeexday jidka ah in lagu daydo qofka Soomaalinimada iyo muslimnimada aan ka kaftamin ilhaan 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 حبت يدالي جويه لقينا كده جعل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدي آد أن وقفر حسنا هاي عاو إن حفلتان أو دمان دتك إسكوجو ذي يمدين آدي آد أن وقفر حسنا هاي إن محل هاي الشيخ عمر فاتح أن أتاجره إنه نقضوا دقة مقالة مينيابوليس كستو يا عمر هدي أن لكفتمو كستو كم سير سنة هانيجا maybe wax badan ka mas'arsanahay because aniga xafladahayga marka raayay ee Soomaalida saan ugu soo buuxsami jireen ka hor saan maliigu imaan jirin marka waxaan u maleynayaa is a good sign insha Allah inay wax fiican ku noqoto ama waxaan u maleynayaa hadee dadka badan oo isku dayay in community-geena iyo jaaliyada Soomaaliya inta Minneapolis ku nool inay kala qeybiyaan inay caawatan suurta gelisay anagoo dhan aan u soo wada baxnay in hal cod aan ku wada hadalno oo aan dhahno anaga hadii aan Soomaali nahay waan ka soo tagnay in la kala qeybiyo waan ka soo tagnay anaga jinsiina isku dagaalno waxaan wadankaanayt ugu noolnahay Soomaalinimo qofka laamiga nagu arko wuxuu og yahay inaan Soomaali nahay ma kala yaqaan hoos qabiiladan ka kala nahay sida isku kala qeybino marka maanta waa sharaf daro in xaflad qof aan Soomaali ahayn loo suubiyay qabiil looga dhaxadlo taas waa mid ceeb ah waana mid aniga qaas ahaan aan uga xumahay ilaan dadka soo qabaabiyeen kasto wax ka kasaaya hadda ay fahmeysaan marka waxaan leeyahay Soomaalida sayti oo isdhaxaya ilhaanan iyo jibinaysiin ama Umar aan iyo jibinaysiin annaga geesinimaana lagu dhalay wiligeena waa guuleysana mid kale Umar aan ugu la kaftamay maanta waxaan tagay Caramel Mall dadkan soo salaamayay aniga bil kasta hal wiigan jooga marka qaraabo salaana iska soo suubiya meelaha iska soo marmara waa laga yaabaa anigoo jidadka iska wareegay inay aragtiin oo dhahdeen ilhaan maxaa meesha ka qabanaysaa waa qaraabo salaana iga tahay marka maanta anigii odagayga iyo Cali waxaan tagnay Caramel Mall dad iska salaameynay waxaan rabaa inuu af Soomaali barto soo meelan galay oo buugaag Soomaali lagu galayay marka maamo oo cadaan ah oo nin Soomaali qaba meesha fadhisay markaas waxay tiri maanta igu ka horeys wiligay waa ku codeyn jiray like hadda codkayga waa si adkeynaya because waa ku arkay waa isbaranay waa ku mahadsan tahay like aniga maanta cod ma raadinooyo
wiil yar oo walaalkay Cumar Faatax la dhaho tartamooyo marka kaas codka iisi magaalada hadda deganta marka waxay tir ninkaas maanta dhan af Soomaali lagu hadlaa Ingiriis kuma hadlo aniga wuxuu sheegay inaan fahmi adduunyo mucjiso waxana maxaa tiri maxuu ku hadlayaa tiri markaas waxay tir maanta dhan aniga nin meeyar oo maanta dhan af Soomaali ku hadlay ma dooran kari waxaan rabaa meeyar aniga imatalayo Ingiriis ku hadlo marka waxaan ku dhahay ninka af Soomaali ma ku hadlay maxay tahay Soomaaliga sheego meeyarka hadda joogaaba ka af Soomaali badiyo iyadoo ay qosasho waxay inta runtaa miya هذا بحيث روح أركي فيديو يال أو لقصة دوبيو أسيقو هاي سوماليا عن allegiance إيسينايا مركتاس بحيث يسوي حسوسي معجزة نهاي صوتها هدي عن نهاي دات سوماليا عجل كاس لقصة دوبي عمر فاتح وحوليه سوماليا هنولاتو haddii aad xaflad meeyarkeena hadda uu ka hadlayo xaflad Soomaali ah aad tagteen gacantaaga okay meeqa mar aragteen asoo boodboodayo dhahay Soomaali ha noolaato wiligiin ma aragteen asoo la dhahay ninkaanaydi Soomaali uu allegiance si ninkaanaydi American ma aha Soomaali allegiance iyadoo dhahay ma aragtay laakiin waxay leeyihiin Umar allegiance uu xusiiyay Soomaaliya Mareykan ma aha waa nin wadanka ku dhashay waaya oo laga qaadi karin Mareykanimadiis taas waxay ku tusinaysaa marka cajalkaasi qofkii soo turjumay inuu yahay qof Soomaali ah waxay ku tusinaysaa qofkaasi in cadownimadiisa ay cadownimo dhaaftay waxay ku tusinaysaa inuusan ka talinaynin kaliya inuusan Umar noqdo meeyarka magaaladan laakiin uu ka talinayo annagoo dhan in loo arko dad wadanka ay ku nool yihiin aanan jeclayn dad wadanka ay ku nool yihiin aanan rabin in ay u shaqeeyaan dad wadanka ay ku nool yihiin aanan rabin wax inay la qaybsadaan marka qofkaas Soomaaliga ah waa qof cadow sare ah dadkaas oo kaleetana magaaladayna nool yihiin waan aragnaa annagoo dhan qaar waxa jiro aan dhahno qofkan wuu iska hadlaa macna ma leh كانين أذيركي واي بليز وحدهن وحلقة يابا كافي شاب يالكين واتقانين دت كان كهدلايو ستاربكس كان لفريستين مي بمساجد كمرمر إنه إمادان على يابا حفلة ده إسلا تكتين واتقانين دت كان كهدلايو أنا وجرو يالا دكنا هاي واركتين دت كاس إسك خبطة مال مجارين أنا الصومالي هدي أنا أنت دت كاس إيه نقول حجران وأنا دهين نقف كانيتي هنا نافو dadka aan difaacna annaga kuwa annaga rabo maalin Ilaahay keeno in xabsina la geliyo maalin Ilaahay keena been naga abuuro maalin Ilaahay keena video yaal af Soomaali aan dhihin soo sheego waxba aan soo sheegnay oo meel hadhoodii aad ka galaysid male ileen maanta oo dhan ma taagnaan kartid ma dhihi kartid aniga hadalkan kuma hadlin because shaqaan noo taala anaga waa shaqaynoynaa idinka idin difaacoynaa wadankaanaan difaacoynaa sharci aan suubinoynaa maanta oo dhan kuma soo taagnaan karno video gaaneeti aniga hadalkan ma dhihin maanta oo dhan meel ma la taagnaan karno taas idinka idin taala inaadan soo dhawaysanin dadkaas maalin Ilaahay keeno ka shaqeynaayo sida Soomaalida wadankan ku nool ay wax ku noqoneen marka waxaan u soo laabanayaa Umar Faatax Umar ma aha qof maanta jaga raadsanayo oo la mid ah inteena Soomaali horay idin soo hor istaagtay oo idin weydiisatay taageer مين خشان عمر معها قف لمد انت هوري او دورتين او عد idin weydiistay عمر waa qofka kaliya oo wadankaanaydu ku dhashay oo jaga raadinooyo عمر waa qofka kaliya jaga cusub u ordooyo jagada uu haayo dadka oo dhan Soomaali kaliya maahine dadka state kan ku nool oo dhan ay og yihiin taariikhdiisa iyo wixii uu qabtay Umar waa qofka kaliya
ogolaaday ciyaalka waddankaanayda ku nool ciyaalka Minnesota ku nool in jaamacad free ay u aadaan sidii aynan deyn u qaadan Umar waa qofka kaliya markii dadka Uber ama Lyft drive gareeyaan uu governorka iyo mayorka iyo qof kasta uu yiri wax aan ku qaban karo male orsaco yiri aniga habeen iyo maalin waa idin soo taagnaanaya aniga 1 AM aan ugu tagay asoo soo taagan wili oo dhaxay ma dhaqaaqayna ilaa biilkan uu pass gareysmo maanta intaas asiga leeyahay ninkaanayti ma aha nin compromise gareyn karo muxuusan u ahayn in compromise gareyn karo because wuxuu og yahay dadka uu matalo wuxuuna og yahay in uu ku khasban yahay ballanta dadka uu ka qaado inuu futuliyo marka waa arkaysiin dad wax iska soo sheegaayo ninkaanayti baalasiyaalkiisa iyo wixiisa waa qofka kaliya aan ku tashan karno in uu mayor noo noqdo magaaladaanayti aniga asiga maanta oo dhan waa isla soconay dabeel badanaa jirtay qaboobay ahayd banaankaan taagneen tacbaanaan nahay ani ma batartamooy xataa ma ogi waxa maanta oo dhan u ordaaye jacayl kaliya intaas iga keentay berina saasoo kaleeta waa isla codaynaynaa beri subaxdii ani asiga wiilkaygaan soo kaxayn doonaa gabadhayda already absentee ku codaysay idinkana saasaa idinka rabnaa waqti yar aan noo haray haddaa magaalada degan tahay coday qofka buildingka kula degan qofka guriga ku degan xasuusi maanta karameel dad ay dhahay khamiista aan codaynayna marka dadku waa run hadee noloshooda busy ku yihiin way ilaawayaan khamiis ma la codaynooyo talaadada ku eg tahay soo waa u baahannahay masaajidyada inaan ka sheegno meel kasto aan fursad u helno beri dambe dadka inaan xasuusino sidii ay ku xasuusnaadaan oo way codeeyaan haddii ay noqoto talaadada habeenkii markii la soo sheego qofkii raayay haddii number yar looga guuleysto annagoo dhan waa xanaaqeynaa because waa ognahay numberadaas ay timeeshay jiraan marka waxaan u baahanahay haddii uu guuleysto iyo haddiisan uu guuleysaninbo habeenka talaadada in aan ku seexano annagoo og wax kasto aan qaban karnay aan qabanay in walaalkeen Umar Faatax uu noo noqdo mayor Umar Faatax ha guuleysto Thank you so much. Ilhan Umar! Hello, صاحبي هذا يوم ياسين.